بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay taariikhdu tahay 27 December 2020 maalin axada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay ugu bishaareynaysaa ganacsatada iyo dhammaan bahda dhaqaalaha Soomaaliya inaan soo gabagabeynay dhaqangelinta sharciga shirkadaha sida aad la socotaan waxaa bishii December 2019 26 December 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay kadib ansixinta labada aqal sharciga shirkadaha maanta waxaan saxiixayaa xeer nidaamiyaha lagu fulinayo awaamirta sharciga shirkadaha si ganacsatada Soomaaliyeed ay ugu abaabulaan ganacsigooda qaabka shirkadaha iyadoo la fududeynayo diiwaangelinta shirkadaha si dakhliga si khadka tooska ah waqti yarna ay u helayaan shirkadaha diiwaangelinta iyo ruqsadaha ganacsiga waxaan sidoo kale xeer nidaamiyuhu u ogolaanaya shirkadaha ajnabiga ah inay ka howlgalaan Soomaaliya kadib marka ay ka diiwaangeliyaan shirkadooda iyaga oo raacaya habraaca ku cayiman xeer nidaamiyaha waxaan aad ugu kalsoonahay in sharciga shirkadaha uu door weyn ka ciyaari doono kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka iyo kordhinta dakhliga ee dawladda federaalka Soomaaliya wabillahi tawfiiq